Codbixinta maanta ee howlgalka Qaramada Midoobay ee kaalmeynta Soomaaliya UNSOM waxay muujinaysaa dadaalka xooggan ee joogtada ah ee Mareykanka iyo bulshada caalamka ee ku aadan taageeridda nabadda, xasilloonida iyo horumarka Soomaaliya. UNSOM ayaa weli ah wada-tashi muhiim u ah dowladda federaalk ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka si ay u keenaan xasillooni siyaasadeed, amni iyo xasillooni dhaqaale gobolka Geeska Afrika. Golaha Amniga ayaa Jimcihii meelmariyay qaraar dib loogu cusboonaysiinayo waqtiga howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM sanad kale ilaa Agoosto 31, 2021. Qaraarka 2540 oo ay si wadajir ah u qaateen 15 xubnood ee golaha ayaa ka codsanaya UNSOM inay ilaaliso oo ay xoojiso jiritaankeeda dhammaan dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee Soomaaliya iyada oo loo raacayo shuruudaha amniga ee UN-ka iyo sida xaaladda nabadgelyadu ogol tahay. UNSOM waxay abuurtay Golaha Amniga bishii Juun 2013 iyadoo taageeray dowladda federaalka ah. Waxay la shaqeysaa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, howlgalka nabad ilaalinta ee ay ansixiyeen Golaha Amniga.